magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa maanta laga furay xarun caafimaad oo loogu magac daray Fayo Medical Center. Xaruntan caafimaad ayaa waxay ka duwan tahay xarumihii caafimaad ee hore ugu yaalay magaalada Laascaanood, waxaana xaruntan ku bohoobay 5 dhaqaatiir oo kamid ah dhaqaatiir kala qaabilsan xanuunada kala duwan. sidoo kale waxaa xaruntan la keenay qalab casri ah oo laga keenay dalka dibadiisa. munaasabad xariga lagaga jiray xaruntan caafimaad ayaa maanta waxay ka qabsoontay hoolka shirarka iyo xafladaha ee Al-Mustaqbal Hotel. salaadiin cuqaal odayaal mas'uuliyiin ka socda wasaaradda caafimaadka maamulka heer degmo iyo heer gobol ayaa waxay ka soo qayb galeen munaasabadan, waxaana kamid ah hadaladoodii sida tan. farxad weyn bay maanta noo tahay inaan ka soo qayb galno furitaanka isbitaalka cusub ee Fayo. isbitaalkan oo kamid noqon doona isbitaalada ku soo biiray magaalada Laascaanood iyagoo isbitaalo horena ka furnaa. kolley dadka wixii isku fiila ama wixii meherado intii isku fiila way iscamirtaa ee waxba isma yeesho. meesha dhaqaatiirtu ku sii badato daweyntiyo tayadii wax walba sii bataan, marka taan waan sida loo fahmaa. ugu horeysiyo sababta aanu u doorbidnay inaan meeshan furo aimkeeda guud ma aha in dhaqaale laga helo. aimkeeda ama yani ujeedada ugu weyn ee aan uga dan lahayn waa in la helo shaqo urursan oo leh waaxyo kala duwan oo buuxin karta dhammaan baahiyaha caafimaad ee gobolka. qodobkaas waxa way qodobka noogu weynaa. waxaanu aad iyo aad u ognahay in qolyahii isbitaalada naga horeeyay furay dalku aad ugu raystay, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka. xarumo hore badan oo la furana waan soo dhaweynaa, waan la shaqeynaa. insha Allah waxaan rajeynaynaa idinna inaan la shaqeyn doonaa. waxa la wixii wasaaradda caafimaadka tasiiraad uga baahan tahay gacan baan isku sii doonaa. runtii waxaan soo dhaweynaa xayaat oo la shaqeyno tayasiir manhal wasaaradda caafimaadka wixii service caafimaad wasaaradda caafimaadka ama deegaanka u soo kordho hawl caafimaad aad baan u soo dhaweynaynaa. niyad furan baan ugu soo dhaweynaynaa. waxaanu ugu baaqaynaa qaybaha bulshada ee kala duwan inay baahidii ay u aadayeen gobolada kale ay gurigoodii ugu timi, qarashku ka yaraanayo, iyaguna ay la shaqeeyaan oo ahmiyad tusaan. runtaa waa guul weyn weeyaan. waa soo dhaweynaynaa wixii yani awood iyo amba karitaan aan u awoodi karnaa wixii la tari karana de waa tari doonaa haddii alla idmo, amba waanu istari doonaaba. waa guul tallaabo fiican weeyaan. waa aad u wanaagsan gobolka in dhakhtaro badan oo mar keliya cusbitaal keligiiyo wada jooga laga heli karo, oo aan Hargeysa loo dirayn, Burco loo dirayn, Nairobi loo dirayn, India loo dirayn, laga kaaftoomo diritaankaas oo dhan laga kaaftoomo oo gobolkeena hawsha noocaasa gobolkeena loogu qabto dadkii bukaanka ah. waa guul weyn. horta dhakhtarka la inoo furay mid barakabaalaha inooga dhigo, dadkuna ku nastaan iyo kuwii hore inooga shaqayn jiray gobolkaba. waxaan u maleynayaa waa farxad inoo soo kordhay iyo guul weeye. waa laga warramay baahida u qabnay caafimaadka, waa laga soo sheekeeyey iyo dhulka u mari jirnay. waana ku horumarka gobolka soo gaarnay aad iyo aad markasta ugu farxanaa runtii. iyo dadka maskaxdooda toojiyey iyo dhaqaalooda ku bixiyay iyagana waxu leenahay waan u duceyno, weliba janno firdawsa ugu duceyno. runtii waxbayna tareen maanta qiimo badan. haddayaan caafimaad lahayn de horumar ma gaadhi karto. marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in meelihii la rabay in wax laga qabto caafimaadka, sida tayeynta dhaqaatiirta iyo tayeynta dawada oo loo baahan yahay in wax laga qabto, in labadaba wax laga qabto. inkastoo imanka facility-ga iyo adeega daawadu aad u fiican iyo daawo aan Mareykan kala imid baa iga dhamaatay. markiiba waxaan tagay farmashiga Soomaaliya, waxaan wardawadaasaan u baahnaay iga maratay 3 cisho kadib baa la keenay. marka arrimahaas oo dhamin kastoo ay hore u mareen, haddana waxaa loo baahan yahay tayeyntii in ay meesha ka muuqato. waa Cabdiraxmaan Kayse, Kalsan TV, Laascaanood.